ليس الجمال بأسباب تزينونه، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. انت كتب ولا ليال وحين كسو هضلني العقد وانا الشيقني العاقدان والسيق والمحل وحا si wada jir aan ula soconnaa meesha uu heshiiska uu ku dhacay oo aan ku magacaabnay almaxal aw macquud calayh. waxay u baahan tahay inaan u yeelano aragti aw nadariya. maxay tahay nadariyada mise aragtida waxaynu ku magacaabnay? waa shay lasiiq ama ku dhagan bilwaaqic. haddaan si kale aan u niraahno wuxuu taabanayaa shaqada iyo nolosha maalmeedka. wuxuu koobsanayaa xiriirada iyo cilaaqaadka ashkhaasta mise afraadda mise dadka ay kala bedelanayaan, almubaadala bayna alashkhaas. taas ayayna kaga gudbaynaa maxay tahay aragti. laana waxaynu rabnaa inaan fahanno almaxal macquud calayhi iyo inaan fahanno si fiican nadariyadii aynu ku magacawnay alcaqd. adiga markaad lacag iska bixinaysid mise shay aad qaadanaysid, waxa waaye qofkan wuxuu rabaa lacagti, qofkan wuxuu rabaa shaygii oo lacagtaas muqaabilka uu ku bixinayo. sidaa daraaddeed waa inaan fahanaa tilmaanta xadidayso iyo waxyaabaha gaarka uu leeyahay oo muuqdo. ma rabno inaan tafaasiil fara badan mise faasiraad fara badan inaan raadinno. sidaas daraaddeed waxay hore u sheegnay si wada jirna aynu u fahamnay nadariyati majlis alcaqd oo aan ku soo koobnay ujeeddada aynu ka leenahay in la helo kulan ku kulmayaan labada dhinac ee heshiiska. ujeeddadeedu waxa weeye iyo aragtida laga leeyahay in la xadado muddada ay wax ku ansaxayaan. aan oran karno heshiiskaas waa heshiis saxiix, oo aan niraahno dadkaas heshiiskoodu waa wada xiriiray, mise aynu leenahay dadkaas heshiiskoodu ma xiriirin. taas weyn ayaa ujeeddadeenu iyo waxaan ugu gol leenahay oo aan rabno athar mise natiijada ay aragtidaas u soo gudbinay mise heshiiska aynu u samaynay. waa 3 shay ayaan ku soo koobaynaa. maxaa loo doonayaa in la helo kulan labada dhinac aan ku magacawnay majlis alcaqdi mise nadariyada aynu ka leenahay majlis alcaqdi. midda koowaad, culammadu waxay aadeen ha noqdaan fiqi islaami mise ha noqdo fiqiga reer galbeedka, waxay aadeen 3 aragti ayaa meeshaas ku imaanayso. aragtida koowaad, in la siiyo khiyaar ninka wax aqbalayo. waxaan idhi waxaygii, gurigaygii, baabuurkaygii waan kaa iibiyey. muddo ayaan bil, sanad, muddo ayaan siiyey. waxaa la leeyahay waa khiyaar alqubuul. oo majliskii ayaa waxaa ka dhashay in qofkii uu iska soo baaro. khiyaar almuujib ayaa jiro oo ninkii
وحسو جيدي أيا وحانير وحولي هي خيار مرنكي أو أقبل أيوها هذا مد كلابات وننكي وحسو جيدي مد سدحان أيا جرتو وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل أي راهدين لا بد الضرف وحليه خيار المجلس أي ليهين فقهية كلنا قلبت كان انتس كما ديرا عرتيدا يطوضا دير أي قليين لكن انتس أيان كسو كوبينا وحين أسلق هذا إن أفضل بلغت دوني إنه مسكحدي سيمان كيسي إنه كهاي آيات إنه هرأ صوت شيقني أو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أو سورة المائدة آية الكوبات وحنا قلاصان كسو كوبينا وإن إسياشان سوجيدينيسي iyo aqbalida waxaynu ku magacaabnay tadaabuq al-iraadatayn labada dooritaan labada raali ahaanshan waa inay iswaafaqaan waa minda aynu niri waana ku balansanay waxaynu ka hadlaynaa maxal al-aqd laana wuxuu u laabanayaa heshiiska naf ahaantiisa ayuu u laabanayaa heshiiskaas inuu ahaado mid la aqbali karo oo waafaqsan soo jeeditaankii kaasi waa kaynu niri waa midka uu aaday fiqhi islaami fiqiga laatiiniga iyo anglo-saxoonka mise anglo-amerika asagana kama foga ra'yi ahaan kaas way kan uu qaatay mucaamalaad madaniya oo Soomaaliga قانونك مدني الصومالية وقلاصة وحدتها ومتها مد إسوافقسن سوجيدي تانكي يو أقبل التانكي وقانون كان وحليها لما أقبلايو حدي أقبلتي زيادة إلى سعوتو حدي أي شرط أي كحريسو حدي سوجيدينتي وحلقة بدلي تاسي قانون كينا سوماليا وحوا قنصدي كاس إني تهديدي ورفض التام وديدي بوحلة أو كده حس الإجابة والقبول سوجيدي تانكي يقبل تانكي أيا وحا كده شيء محل هذا ديدي تان ولذلك وحا سويدينينا هشيس كاس ما أران كرنا وهشيس جيرا أو وافقسن لانا وحنين لوضتنا وإن هشيان هشيس كود وإن كتالان إيسا راد شرعي أهان يوميت قانون أهان أو لطبقايو وحلو هشي المحل المعقود عليه لطبقايو تصالة أهان سيدان نري حكمته waxay keenaysaa saan isla ognahay xikmadu waxay keenaysaa in aan wax isweydiisid haddii aad wax isweydiisid xikmadii waa gaaraysaa saan xikmad aan ku gaarno waxaan isweydiinaynaa tusaale ahaan u soo qaadanaynaa muxuu yahay beec intaa ka soo hadashay tusaale noocadee si wada jir ah waxaynu isla qaadanay oo isla garanay asiiqa oo aynu ku magacaabnay al-ijaab wal qabuul soo jeedin iyo aqbalitaan ha ahaato mid af ahaan mise mid isbedel adi alaabtii aan ka qaatay adigana lacagta ay siisay anagoo aanan hadlin labaduba waxaan ku magacaabnay asiiqa هات مد قولية أمساء مد فعلية شرط أي لها أي صيغة أي كن قنص مد لا أقبل كرو صيغة وإن انتهي وها أي كتوس سينكم عون الدلالة مد عد
waan kaa iibiyey waan kugu wareejiyey ereyga oo mubaadalada ha noqoto beec mise qeyrkiis ha noqoto waa inuu noqdaa erey waxa uu ku tusinayo ay caddahay shardi labaad muxuu yahay waa iijaabka soo jeedintaanka iyo aqbalidda inay tahay mid wada xiriirto shardiga saddexaad oo siiqada soo galaysa maxay tahay waa aqbalitaanka inay tahay mid waafaqsan soo jeeditaanka sida qaanuunka madaniga Soomaaliyeed uu cadeeyay oo yiri wax kasta oo dheeri ah mise shuruud ku soo kordhinaya mise wax ka bedelayo waxa soo jeedinta ay wadatay waxa lagu tirinayaa inay tahay diidmo qayaxan waxa uu soo galaynaa al-macquud calayhi oo maxalka aynu ku magacawnay marka beeca la joogo laba ayaa miisaal u soo qaadanaynaa oo maxalka noo noqonayo meesha uu ku dhacayo heshiiska waxay tahay shayga iyo lacagta laana qofku waxa iska iibinay wuxuu rabaa lacag ayuu rabaa qofka gadanaya shayga uu lacagta ku bixinayo ayuu rabaa sidaa daraadeed lacagtu waa inay ahaato athamanka waxaa loo shardiyaa macluuman lilcaaqidayni lacagtu inay cad tahay $10 $5 $1 nus dollar qururuq aan kaa siistay balaayiin aan kaa siistay inay lacagta ay cad tahay inaan awood u leeyahay inaan ku siiyo laana waxaa tiri waxaan ku siinayaa lacag hindi aan ku siinayaa waddankana lagama isticmaalo lacagtaas lagamana yaqaanan lamana ogola qaanuunka waddankaas aad joogtid marka lacag aan la aqoonin mamnuucna ka ah waddankaas waxbaan kugu siinayaa suurtagal maahan qaanuunka wuu diiday shareecadana way diiday midda saddexaad inaad mamluuka lilcaaqidayn ninka caaqidka wax heshiiska galayo waa in uu yahay mid uu hanti wixii haysto waxaadan haysan waxaadan lahayn mise aadan tasarrufkiisa lagu idmin ma banaano waxaa aasaasi u ah laba shardi caaqidaynka haddaan ku laabano waa rida labada daraf iraadadoodna iswaafaqsan tahay midda labaadna ahliyati tasarrufu ma leeyihiin oo waxaan wax uu sharciga uu ogol yahay in mubaadala ay noqoto ma tahay shuruudaas maxaynu u soo qaadanay waaqicayna maxay ka tarjumaysaa sidaa daraaddeed intaanan ka bixin su'aalo ayaan isweydiinaynaa oo casharkeena noo noqonaya tatbiiq aynu isku diraynaa sawir badan ayaa jiro mise tusaalooyin badan ayaa jiro waxaa leeyahay masnacaas dhar ayuu sameeyaa mise wuxuu sameeyaa baabuurta aynu usoo qaadana tusaale ahaan masnacaas aad leedahay oo baabuurta sameeye waa ku yimid baabuurkan iga iibi lacagtaana wataa shuruudaha aan soo sheegnay sidee ugu dabaqmaysaa isla tusaalihii waa ku yimid waxaad tiri baabuurkan qaado bil walba intaas iska bixi qadar mucayan ayaan ku heshiinay muddada ayaan ku heshiinay baabuurkii waa qaadatay heshiiskaas waa qornay inaan baabuurkii kugu wareejiyey baabuurkii intaad guriga u sii wadatay baabuurkii weynaa soo dulmaray baabuurkii waa baaba'ay eber hal maalin ma aada wadan baabuurkaas yaa uu ka baaba'ay ma ninkii hore mise ninkii soo qaatay su'aasha su'aal noo wada taalo weeye
su-aasha kale waxay isla taas ayay tahay waxaa tiri baabuurkan ayaan u baahanahay waxaa lagu yidhi baabuurkii waa baxay walaalow kama maarmi karo baabuurkan oo kale u baahanahay waxaan rabaa masnaca inuu ii sameeyo baabuurkii waxaa lagu sameynaa bitaqsiid qaar inaa iska bixisid laana adi aslan waxaa u timid in aan lacagta lagugu yeesho heshiis ayaa la gashay waxaa lagu yidhi baabuurka samaystikiisa waxaa muddo 2 bilood 60 maalmood ayaa lagugu diyaarinayaa heshiiskaa lagaa qoray waxaan idhi shardigana waxaan hore u soo sheegnay in thamanka iyo mathmanka labadaba majhuul inuusan mid uusan ahayn xukunka aynu siinayno maxay tahay thamankii lama hayo lacagtii lama hayo silcadiina lama hayo heshiisna waa dhacay adoo u dhabagelaya waxyaabaha aan soo sheegnay jawaabtu maxay noqonaysaa midda kale isla tusaalihii aan u soo galno waxaan ku yiri baabuurkii masnac baabuuran ayaad leedahay baabuurkii waa ay siisay waa kaa qaatay waxaad tiri bil walba kira ayaan kaa rabaa 2 sano lacagtaas intaas leeg haddaad bixis baabuurkaada iska leh muddaa baabuurkii 6 bilooda baabuurkii watay meel baasiin anoo baasiin ka qaadanayo ayaa meeshii baasiinkii qaraxday baabuurkiina waa meeshuu raacay yaa lagu leeyahay baabuurkaas halaagsamo baaba'ay maanaa layga rabaa mise adoo masnaca leh ayaa leenahay caafiya waxa iga gubteen laana ani awood kuma leeyahay wixii iga gubtay wax ka baxsan awoodeeda ayay ahayd marka sidee baynu ku fasiraynaa sidee baynu ugu jawaabaynaa sidaa daraaddeed ayay waxay noqotay in aan ka hadalno muxuu yahay heshiis maxaa shuruud u ah maxaa tiirar u ah sidee ku ansaxaya qofka maxaynu oranaynaa majlis heshiiska see loo kala qorayaa sidaas ayaa waxay mucaamalada ay noqotay muhiim inaan ka hadalno qaanuun inaan ka hadalno maxuu uu yahay alcaqd insha Allah jalasaad kale kulamo kale ayaan jawaabahaas inaga sugaynaa aan isku wada diraynaa inaan ka soo wada jawaabno wixii insha Allah oo cadeyna waa insha Allah waa raacsiin doonaa halkan waa xarunta tala bixinta sharciyada nootaya fiqi waxa soo jeedinaya anigoo ah Dr. Ciise Cabdiraxmaan Maxamed Axmed ليس الجمال بأسباب تزينونه إن الجمال جمال العقل ولا